السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mar kale buuggii hagaha dhammaystiran ee tensiyada ingiriisiga waa ka dad waxaa jiray aanan arkin dadkaas ayaan ugu talagalay mar labaad inay arkaan buugga waa dhammaystiran yahay macluumaadkan muuqaalkan dhammayso asagoo faahfaahsan waxyaabaha uu ka kooban yahay anoo sharxaya ayaad arki doontaa insha allahu tacaala whatsappkana halkaas ayaad ku arki doontaan. magaciisa waxaa la yidhahdaa hagaha dhammaystiran ee tensiyada ingiriisiga 12 tenses oo dhammaystiran oo full ah oo faahfaahsan. walahi haddii aad hesho buuggan ma u baahan doontid xitaa muuqaaladii hore ee youtube-ka aan u soo geliyey ee 12 tenseska aan uga hadlayay ma u baahan doontid kaliya buuggan kugu filan. qaabkaas mar kale hoosan ku qoray igala soo xiriir insha allahu tacaala waan ka wada hadli doonaa. waad mahadsantihiin. buuggii aad wada sugayseen ee 12 tenses ee luqadda ingiriisiga waa kana asoo dhammaystiran af Soomaali ku sharxan oo cid kasta yani fahmi karta aan fududeeyay. wuxuu sidoo kale uu ka kooban yahay tusaalooyin dhammaystiran tusaalooyin yani 12 tensesba tense kasta wuxuu wataa tusaalooyin dhammaystiran. tenseska waxa uu sameeyay negative, positive, negative question iyo waliba questions. afartii uu tense uu ka koobnaan lahaa oo dhan waa uu ka kooban yahay. sidoo kale tense kasta markuu dhamaado wuxuu wataa exercise. haddana exercise-ka markuu dhamaado haddaan fahmi weyso in case wuxuu wataa answers jawaabooyin. haddana jawaabooyinkana sidoo kale waxaan ku tarjumay af Soomaali. adi buugga oo dhan tenseska kulli macal example-kiisa all of them waxaan ku sharxay af Soomaali. waa tafatiray, waa habeeyey, waa qurxiyey, waqtiyaan geliyey. waxaan ka soo saaray book international ah. buugga wuxuu ka kooban yahay 83 page. soo PDF haddii aad u baahan tahay waan ku hayaa laakiin free ma ahan, khidmad yar jirto, waqti badan aan geliyey. insha Allah haddii aad u baahan tahay WhatsApp-ka halkaas aan ku soo qoray lambarkaas WhatsApp-kaas igala soo xiriir insha Allah tacaala. asagoo PDF ayaad iga heli doontaa hadduu Ilaahay idmo insha Allah tacaala. marka haddii aad u baahan tahay